waxaan rabaa tusaale yar inaan dib yar ugu yar noqono annaga Soomaali haddaan nahay waxaanu ka nimid miyigana waxaa laga qabtaa laba shaqo xoolo iyo beero haddaad dib u fiirisid qoysaskeenii hore miyiga ku dhismi jiray xoolaha ninku marka uu reer guursado dabcan wuxuu degi jiray meel bannaan oo cidlo ah oo dhul ilaahay iska degi jiray waxa dhulka laga dhisayaa ma aha wax dibadda laga keenaa wax local ah dalka gudihiisa laga helay raarka kabada qobtalka tiirarka wax alla waxa guriga ka samaysan yahay waxa laga keenaya biicada qofkaas ku nool yahay qarash ma hayna shaqa lagu soo saari jiray ama reerahaas ka soo ururin jiray gurigaas la dhisayo waxa lagu isticmaalay gudihiisa oo dhanna waxa laga sameyn jiray geedaha deegaanka yaa laga sameyn jiray qaadada maxaan ku yiraahdaa weelka caanaha lagu cabayo maxaan ku yiraahdaa xeerada raashinka lagu cunayo kulli waxay ahaayeen wax natural ah nature ah oo local ah oo laga soo bixiyo geedahaas okay odaga shaqadiisu marka maxay ahayd soo hiraalka reerkaas uga mira dhalayo u guuleysto shaqadiisu waxay ahayd inuu reerka u sahmiyo markuu meel dago oo xoolihiisii degsado odaga shaqadiisu ugu horeysa waxay ahayd inuu reerka u sahmiyo wuxuu u sahminayay meel uu reerkaas u dago wuxuu u sahminayay meel uu ku baraako oo barwaaqo meel aan col ku galeyn meel aan bahal lahayn iyo qaniin ayuu u sahminaya gurigii markuu gurigaas soo helo booskaas u sahmiyo ayuu reerka raraay halka geeya haddii meeshaas ku xumaato intuu reerku halka degan yahay maskaxdiisa waxa ku jirta meeshii ka sii fiicnaan lahayd ee reerka geyn lahaa xooluhu u dhaaminaya waa u oodaya magaalo uga soo adeegaya shaqadii oo dhan buu hayaa mas'uuliyadeed buu buuxinaya haddana saasoo tahay geedka fadhiga ama lagu warqal qaato wuu tagaya bal u fiirso qof baadiye jooga yaa waqtigiisa wuxuu u qaybshay inuu reer u dhaamiyo inuu u sahmiyo inuu u oodo inuu xoolihii raaco reerka marka hooyadana gurigii iyo shaqadii gudaha ayay haysaa iyo xoolihii intii kaleeto waxaa fahmaysaa marka ninka maskaxdiisa waxaa ku jirta mar walba inuu qoyskaas gaarsiiyo barwaaqo iyo nashaad iyo baraare in xoolahaasu noqdaan xoolo ugu cayilan ugu quruxda badan ugu caafimaadka badan sababtoo xoolihii baa lagu tirsan yahay waxay ku noolaan cadi caanay ahaayeen ama waa maalayeen ama waa qalanayeen marka hiraalkiisu wuxuu ahaa ninka ama obayaashanadii horeba waxaa hiraal u ahaa inay reerka dejiyaan meel barwaaqa inta barwaaqaa lagu jirana waxay ka fakeri jireen meel kale oo meesha ka sii wacan inay reerka wararaan dhinaca beeraha markaa fiirisid waad garanaysaa qoysku markuu abuurmo dhowr jibaal buu tabcadaa haddii ilmo ku soo biiraan waa la kordhinaya haddii ilmo kala yimaadaan waa la sii kordhinaya bakaar baa hal ilaa la sameeyaa oo lagu kaydiya badarka ama ha la iibsado ama ha la cuno waxaa laga fikerayaa 4 sano soo socota ama haddii abaar dhacdo badarkii reerkaasu ku noolaan lahaa yaa inta god la qodo lagu kaydiyaa oo bakaar baa la dhahaa si aysan u xumaanin waa bakaar ilaa meesha ma jiro marka waxaa la rabaa maadaama aan ka nimid nolol saa u qorshaysan ama beer ha noqoto ama ha noqoto baadkaas xooluhu ku nool ha noqotee hiraalkooduna ahaa sidii qoysaskaasu mar walba ku heli lahaayeen waxa ay rabaan maxaad u maranaysaa maanta qoysaskeena magaalada jooga maxaad seebaa laga yaabaa inaad uga fakaraysid qoyska inta la dhiso oo la isguursado miyaa laga tegayaa ma waxaa la sugayaa dabayshu dhinacay kuu sida inaad u raacdo oo aad qof dabayshu dhinacay u aadaan ma waxaad sugaysaa inaad noqoto doon bad saaran oo hirku dhinacu rabo u wado waxaa ogaataan qoyskan qorshe iyo hiraan lahayn qalalaas ku dambeynaya qoyskan qorshe iyo hiraan lahayn qalalaas ku dhamaysan noloshiisa wuxuu ku dhamaysanayaa dagaal buuq isfaham darro iyo isfaham waa laannahu meesha u socdo ma yaqaano waxba ma qorshaysan ma fahmin in waqtiga uu ka faa'iideysto waqtiguna waa wax qaali ah jaaniska maanta ku soo maraa kuma soo noqonayo waxaad maanta qabsan weydena ma qabsanaysid waa ku dhaafta sababtoo berri waqti kale waay maanta waxaa la rabaa inaad qabsatid sida ugu wanaagsan ee qorshahaas ugu diyaargaroyn karto waxa weeye waxaad qaban karto maanta inaad qabatid qoyskaagana aad u samaysid qorshe aad dhammaystiran
oo adag iyo xaaskaagu iskaga warqabtaan oo qoyskaasu waxa uu noqon doono aad ka fakartaan ka sheergaraysaan adigu ka tashataan mustaqbalka soo socda iyo siduu u noqon doono waxaad garanaysaan baadiyaha markii laga yimid oo magaalo la yimid kulli magaalo waa kooste waa kharash bal u fiirso meel balan ma degi sidoo duur ma degi kartidi magaalaad degantaha guri baad gelaysaa guriga waa kharash guriga waxa dhex yaalo dhan waa waxa external waxa waddanka lagu sameeyay ma jiraan qaadada ugu yaro dibadda laga keenaa waa kharash waay guriga dhexdiisa waxa ku socdo koronto iyo biyaha ku socdo waa kharash waxaad u baahan tahay waa hu oo dharaad u baahan tahay iyo waxaad ku labisato waa kharash transportation ma u baahan tahay inaad socdaasho hartaa lugtaada kuma gaari kartid waa magaalo waa kharash waxaas oo dhan waxaa ka sii dar waxbarashadii waa qarash caafimaadkii waa qarash waxaa soo siiyay ayaamahan dambana waa teknolojiyadiyo waa qarash haddii tallaabadaa qaadaysa marka ay wada koosti tahay ama wada kharash tahay reerka aan dhisaysana wuu u baahan yahay inta hadda aan soo sheegay ma intaa indhaha iska xirtaad sugaysaa in aad farxad iyo wanaag iyo baraare ku noolaatid mise waxay u baahan tahay indhahaaga inaad furtid ka faa'iidaysid jaaniska soo socda waqtiga aad ka faa'iidaysatid hiraal la-aantu aada iyo aada u xun tahay qorshe aan hiraal lagu dabaqinna ma guulaysto waxaan rabaa inay aabbayaashu fahmaan inay qorshe qoys oo hiraalla ay samaystaan si qoyskaasu uu uga gudbo mashaakilka iyo isqabashada iyo isfaham darrida uguna gudbo barwaaqo iyo baraare waxaa la ogaada qoyskii hiraal iyo qorshe samaysta oo mustaqbalkiisa ka fakara oo sanadkan soo socda maxaan qabanaynaa qorshahoodu yahay maxaan seefgaraynaynaa kharash ilmaha soo socda maxaan ugu talagelaynaa haddii ilaahayna siiyo caafimaadkeenni muxuu noqon doonaa haddaan kiri ku jirno kireesee uga baxnaa ma ahan inaad u fakerto in aad ama aad aaminto qofku inuu u baahan yahay inuu wax qorshaysto hadduu dhaqaalo haysto dhaqaaluhu muhiim ma aha dhaqaalaha waxaa ka muhiimsan fikradda iyo talada yaa ka muhiimsan adoon waxba haysan haddaad tala iyo qorshe samaysato oo aad samaysato meeshaad joogto fahamtid meesha aad rabtay inaad gaadhina aad cabirtid inta u dhaxaysana saad ku gaari lahayd maalin walba ama sanad walba inaad taas soconaysa aad ka fahamsan tahay waad guulaysatay dhaqaaluhu hasaa imaan doona laakiin dhaqaalo kaasooda haysato haddaadan tala lahayn iyo qorshe iyo hiraal waxba kuu shaqayn maya saad isaga gurayso un bay kaa dhammaanaysa marka insha allahu tacaala casharkeenna maanta intaasuu noogu dhan yahay waa cusmaan sheekh oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu